reer burco arrin kale aan doonaya halkan inaan kaga faa'iidaysto ninka halkaas soo fadhiya ee dadka cadawga xasuusiyey waa shayga qaadka la yidhaahdo saaka magaaladeena halkaasi waxa uu ka dhigay wax goor ay inoogu dambeysay aynaan garanay. waxaan idiin sheegaya magaalada bahalka qaad la yidhaahdo waa soo gala. qof kasta wuxuu og yahay qaabku ku soo galo. wuxuu ku soo galaa isagoo hoonka halkii ugu argagaxa badnayd hoon 8 dhuumooda isagoo tumaya. waxa uu soo galaa isagoo boqol ku soconaya oo aad moodo inuu highway maray. bishii 11/2019 golaha deegaanka degmada Burco arrinka qaadka go'aan bay ka gaadhay. go'aanka laga gaadhay wuxuu ahaa gaarigan magaalada soo gelay ee hoonka wax ku laayay ee lugta wax ku laayay ee guuxa wax ku laayay in magaalada markuu isata soo dhaafo loo sameeyo meel uu qaadka ku rogo. dabeedna baabuurta yaryar ee sabalaayar garaysa qaadka halkaa lagaga soo qaado. hadda anagu cashuur kama qaadno qaadka. wax cashuur aanu ka qaadnaa haba yaraatee ma jirto. gaariga 40,000 ee marduubsida 90,000 oo Soomaaliland aanu ka qaadno. halkii baa loo sameeyey. saaka waxay sameeyeen inay ciidan ka badan ciidankii bilayska intay soo horeeyeen ay bilayskiina qasab ku soo jiireen istabtii qasab ku soo jiireen magaalada ilaa saaka ku wareegayeen ka qaylinayeen. taliya qaybeedkii markuu ka hadlayay amni taa haddaan wax ka qabanina maxay u diiday qof kasta inuu qorigiisa la soo baxo inuu suuqa iska maro. maxay u diiday inamada waxaa sameynaya waa inama la garanayo. amniga gobolka mas-uulka ma yahay anu xamed muraad haan amniga gobolka mas-uulka ma yahay. guddida nabadgelyada gobolka tordheedna kuma jiro. maamulka degmada madax ka waxaan sugaynaa nimankaasaa ka dhigay magaalada waxaan hore uga dhicin waxaa laga qabto. haddii kale waxay noqonaysaa in qof kastaba intuu qorigiisa la soo baxo makhaayadaha kaga shaahon aan cidina la hadli karaynin. taasay noqonaysaa. haddii nidaamka laga dambeyn waayo la kala amarradu ay socon waayaan oo amarka golaha deegaanku socon waayo ka taliya qaybeedkuna socon maayo ka ina cadow yorana socon maayo ka guddida nabadgelyaduna socon maayo. waxay noqonaysaa dee in nin waliba xooggiisa uu isticmaalaa bay noqonaysaa haddii sharciga iyo dowladnimada iyo qaanuunka iyo kala dambeyntu ay shaqayn weyn. waan ka xumahay arrinka dhiilada leeyan dhegihiina maqashiiyo laakiin waa wax dadku ay og yihiin oo ummaddu ogta warbaahintu qortay qaad wali saaka waxay magaalada ka dhigeen ee rabshada ee buuqa ee khalkhalina ee nabadgelyo ku ciyaara ee cid ay isku halaynayaan aan weli la garanay. aad iyo aad baan uga xumahay in magaaladeen inama yaryari ay saaka ku ciyaareen. xilligaa aynu joognana hal gaadhi iyo hal inan oo yar oo loo soo qabtay falkaa foosha xun ee karaymka ee qaranduliska aanu jir. dowladda hoose ciidan ma leh. dowladihii hore siyaad barreey dee mina shiibi bay lahaan jirta waa la garanaya. maanta anagu ciidan ma haysta dowladda hoose laakiin waanba sugaynaaba amniga cidda u xil saaran arrinkaas saakana waa arkayeen waxay ka qabtaan waa la sugay dhammaantiinba.